بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta taariikhdu waa 8 bisha shanaad 1444 hijriya kuna beegan 22 bisha 12 ee 2022 waa aroornimo khamiisa. waxaan halkan ka jeedinayaa ereygayga ku saabsan soo bixista aan saaka ka soo baxay xabsiga. saddex qodob ayaan u qaybinayaa ereygaygan. midi waa mahadnaq, midna waxa weeye waxay ku saabsan tahay jeelka sida ku galay bilow ilaa dhammaad arrimaha jeelka la xiriira. qodobka ugu dambeeyana waxa uu ka hadlayaa kitaab aanu ilaahay soo dejin oo nala ku xukumay oo la yidhahdo xeerka ciqaabta guud. haddii aan ku bilaabo mahadnaqa, allah baan u mahadnaqayaa. ilaaha mahadoo dhan ay isagu iska leeyahay ayaan u mahadnaqayaa. ilaaha khayrka ii qadaray ayaan u mahadnaqayaa. ilaaha qadaray inaan jeelka galo ayaan u mahadnaqayaa. ilaaha og waxa ii khayrka ah ayaan u mahadnaqayaa. ilaaha maanta i soo saaray ayaan u mahadnaqayaa. ilaaha muslimka iga dhigay ayaan u mahadnaqayaa. ilaahaas oo aan ka bareeyo inuu aakhiro iyo adduunba ii naxariisto, isagaa mahad oo dhan iska leh. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر لا شريك لك. dadka aan u mahadnaqayo waxaa ka mid ah hooyaday oo inala joogta halkaasay taagan tahay. hooyo ilaahay khayra kugu abaalmariyo. jazaaki allahu canii khayran. ilaahay khayr hayga ka abaalmariyo. وقضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلهي وحو يري سيدوك لا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إلهي وحن كبر يا ويدين ونحريستو دنبي جيدا دافو خالك النقطة آخرة ويقرب تاجني انت عن حدنا إلا يرانتي وحوي أساسي يقرب تاجني إلا أنا جو هذا انت هتشرنا ويقرب تاجني وحوي إلهي خير هكوا بالمريو ورور بكو هي حرق يجو. لكن ما أنت حوي ويفرح سنت هاي وأنا إلى شوفته أنا ما هنقيا سيدوك لا حاس كيجا ويدنا إن بدن صورة براديكتي يدنا وحلاها هاي واد ما هتسنت هاي إلهي خير هكوا بالمريو سيدا دي قرب استاكتي. وحنو ما هنقيا أبدا قف كدب أهل كيجا لما أنتود وأنك لا سوع لهين حكتديدا لما أنتود أنك لا سوع لهين ومد والبابا كارين وكلها مناسبات كجيون منه هدان مقعدة ضد كحتريو. لكن حوي أهل كي حكتدا قرب كيجا أها مهنقة يقوله والمهنقية مهنقة أوضا بيه وحوي ومهنق بود قف والبا ماشو دونه هتشوجو كالنتو دونه وحو دونه هاي قبته مهنقة يقوله معروف كأي سميي وأن مهنقية. إلهنا وحن قبر إياه إنه أرنك أي قبتين إلهي خير كوابا القبيل وحوية إنا نوجه هي إنا نوجين بقى وأنا مهنقية كذب وحنوجو ذا قليا حرقيقي سيدو كبلامي إنتان لي سوحرين ولا ليال وحان كهل لي بليه قدام بيه إنتان لي سوحرين دقرها قال هذا يدبتها ينقو هيان iyo inaynu ka digtoonaano dhagaar walba iyo xumaan walba. si kooban haddaan u sheego waxa aan ka shaqeynayay wanaag farista iyo xumaan reebista ilaahayna faray. ilaahayna wuxuu yidhi a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-naas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. ammaan aynu ku leenahay waa wanaag aynu farno, xumaanta aynu reebno. taasoo waajib inagu ah inaynu ku haaya sameeyno.
أنا بليه قدام بيا رمها كهاللي أيا وحى جامعة برواقو وحفلة قبصتي كهاللي مسبيحي oo shabakada abaarsa iyo dugsiga abaarsaba amaanay oo taageeray waxaan u sheegay in halkaasi lagu hayo wax islaamnimada iyo muslimiinta u dan ayuu sheegay waxay hayd markaa uu hadlay taariikhdu 16 bisha 8aad 2021 aniguna maalin kadib ayaan hadlay anigoo arrinka ka hadlaya madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu booqday oo isagu soo arkay waxaan idhi madaxweyne adigu muddo yar oo kooban ayaa joogtay marka meeshu waxay u baahan tahay guddi hubisa ayay u baahan tahay sidaasaan idhi waxay u baahan tahay meeshaasi cid yani muxuu ahaayey soo hubisa waxay muxuu ahaayey qabanayso waxaad ogaan kartid maaha waxaan kaloo aan sheegay markii aan ka jawaabay arrinka in dhaqaalaha ay bixinayaan ee uu ku ammaanay iyaga inay dani laga leeyihiin sababtoo ah hooyo gaalka ilaahay baa sheegay inaanu muslimka dan yani wanaag u wadin anigu waxaan war lacagtan ay bixinayaan dan bay naga leeyihiin ha la iska hubiyo oo ubadkeenna ay u dhigayaan ha la hubiyo bas meesha ha la hubiyo ha la socdo manay nuxurka waadhaydu saas ayuu ahaa waana duubanta maalin kadib markii ay taariikhdu tahay 19 bisha 8aad 2021 waa la soo xiray markiiba waa la soo qabtay waxa weeye eedaa la jeediyay inta burco la iga soo kaxeeyay madheere la geeyay kadibna halkan aan ku dambeeyay eedo ayaa la jeediyay eedahaasi waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga abaarso waxaad warar been abuura ka faafisay dugsiga abaarso waaye waxay yiraahdeen cadeymaan ku haynaa cadeymaha ay hayeen waxay keeneen dad ay yiraahdeen waa waalidiinta dugsiga abaarso oo u taagan inay yihiin marag iga dhana isla markaana dhibanayaal waalidiinta waxa lagu sheegay marag iyo dhibanayaal marag iga dhana iyo dhibanayaal say isu qabanaysan anigu ma garanayo qofku dhibana garto laakiin marag baan ku noqonaya dhibana kiisu ka yahay waa lay keenay dadkaas waxa kaloo lay keenay cadeyn waxa lagu yiri muuqaalkii aad yani ka jawaabaysay ayaa cadeyn ku ah iyo baadhii waxay ka qorayba intaas cadeyn ku ah aniguna cadeynteedii baan keenay waaye waxaan anigu cadeyn aan u keenay aan cadeyn ka dhigtay aayadaha quraanka kariimka ee ka hadlaya inaanay gaaladu wanaag la doonin muslimiinta wax khayr oo wanaaga inaanay la doonin baan cadeyn u keenay sababtoo waxa la igu aadeenayaa waxa gaaladii wad ku tiri muxuu ahaa wanaagina lama rabaan anna waxaan idhi aayadaha saa cadeynaya inaanay gaaladu wanaagina la rabin oo ay u jeed leeyihiin markay muxuu ahaa dugsiga inoo furayaan iyo markaynu ubadkeenna inagoo aan controlin aynu ku sii deynayno aayadaha sankeen waxaan kaloo keenay aayado ka hadlaya inaanay gaaladu joojinayn la dagaalanka muslimiinta ilaa ay ka saaraan diintooda haddii ay karaan waxaan keenay aayado sheegaya ama ka hadlaya inaanay gaaladu jeclayn muslimiinta waxa ka mid ahaa aayadaha aan keenay maxkamadda horteeda ee aan cadaynta ka dhigtay ilaahay baa marag laga dhigtaaye iyo hadalkiisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم انتاس أيان آياتهاس أيان كاني آيات دورانيسا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وحن كلو كاني
caddaymaha iyo caddaymo kale waxaan kaloo keenay nin la yidhaahdo kuubar anderson kuubar oo ku caana yacni falka qoomuluudka inuu sameeyo inuu dugsiga soo booqday oo ardayda lagu sii dhexdaayey oo ardayda lagu soo dhoweeyey munaasabad inta loo qabtay ardaydii muxuu ahay la dhex dhigay oo uu khudbadeeyey oo uu taariikhdooda uga sheekeeyey oo aan idhi tusaalaha saas may wanaagsanayn muuqaalladii baanu ku soo bandhignay projector ayaanu ku soo bandhignay muuqaallo caddaynaya ninkaasi inuu meeshaa galay oo ay ahayd inaanu gelin waxaanu soo bandhignay oo aanu caddaymaha maxkamadda keennay gabadh guddoomiye ka jaamacadda barwaaqo oo la yidhaha Joy Ciise gabadhaasi waxaanu keennay Twitter baanu keennay qoraal ay qortay kaniisaddii soo dirtay ay qortay oo ay leedahay waxaanu u ducaynaynaa Joy Ciise oo Soomaaliland u tagtay hawlo diimeed baanu keennay inkastoo kaniisaddii markii dambe ka saarto ay tiri arrimo yacni naguma shuqul lahaa gabadhani oo si khaldan buu qoraalku nooga baxay ayaanu keennay labada qoraal baanu keennay waxaanu kaloo maxkamadda keennay gabadh la yidhaha Christina Bowden oo ka dhigta jaamacadda barwaaqo oo macallimada oo u ololaysa yacni LGBT weliba qaybta tiida oo ah isxawilidda in raggu rag iska dhigaan dumar iska dhigaan dumarku rag iska dhigaan sawirradeedii iyadoo muxuu calankii muxuu hayay dadka LGBTQ+ iyadoo ku xardhan baanu soo bandhignay maadaama annagana leedaynaya annaguna waxaan idhi baltaana ayaga dee ayaanu nidhi maxkamaddaanu arrimahan idinkala hadlaya waxa weeye waa waxaanu maxkamadda muxuu hayay aanu geynay intaa iyo in kale ayaanu soo bandhignay maxkamaddii go'aan bay soo saartay laba go'aan bay soo saartay waxa weeye markii ay sukaaye eegtay labadeeda dhinac waxay tidhi waxa weeye waxba laguma laha ninka wax dembiya laguma laha baraa'a ay soo saartay inaan berii ahay sidoo kale waxay amartay maxkamaddu in laysii daayo go'aan waxa weeye in laysii daayey maxkamaddu waayahay lama fulin goobtii aan joogay lama fulin oo layma sii dayn in laysii daayay ayay ahayd laakiin lama fulin maxaa dhacay anoo katiinadaysan baa dib laygu celiyey jeer asalku wuxuu ahaa marka shuruucdooda loo eego in qofka dee markuu muxuu maxkamaddu ay beri ka dhigto inuu baxo laakiin lama sii dayn adigu 3 bilood iyo dheeraad kadib maxkamad labaad oo rafcaanka baa lay bilaabay oo ambiil baa laga qaatay anigu ma qaadan markii ambiilka laga qaatay maxkamaddu waxay soo saartay go'aan bay soo saartay go'aankaasi wuxuu ahaa in 2 sano lagu xukumo iyo 3 milyan oo lacag hadda wax cusub oo yacni ka duwan caddaymo cusubna qoladii hore may keenin aniguna wax cusub kuma daran intii hore uma sheegay iyaguna wax cusub may keenin laakiin haddana 2 sano ayaa lagu xukumay waxaan biila kama qaadanano sababtoo ah yani waxa weeye rajo kama qabin cadaalad inaan helo waxaan biila kama qaado marka waxaan go'aansaday inaan 2 sano dhamaysto 3 milyan ee la isaaran iska bixiyo oo aan muddada ku jira jeel qodobka saddexaad ee walaalayaal marka inta waxaan kaga baxayaa xaligayga horta saas waa sababtaan idinku warramaya waxa weeye aniga fursad layma siin inaan ku hadlo sababtoo 2 dhinac baa la ku yiri ayaad eedaynaysan ku soo eeday qolada kalena warbaahinta la hadlaysay anoo xiran oo qaarkood ku hanjabayeen inay dilayaan ama ay yiraahdeen waa in la dilo oo waxay doonaan bay saarayeen anigana waa la soo qabtay layma ogolaan warbaahin waan xidhnaynta marka maanta ayuu ilaahay ogolaaday inaan hadlo oo sheego yani muxuu ahay sidii wax u dhaceen qodobka ugu dambeeyay walaalayaal waxa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la yiraahdo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta maxkamadda waxaan ka dalbaday garsoorihii hore waxaan ka dalbaday iyo garsooraha dambaba waxaan ku yiri kitaabka ilaahay igu xukum marka waxa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la xeerka ciqaabta keligayna maaha ee waa kitaab yaalla maxkamadda oo dadka lagu xukumo walaalayaal ilaahay wuxuu ina amray inaynu isla xukun tagno kitaabkiisa iyo sunnaha nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaanu inaga reebay inaynu isla xukun tagno
waxaanu soo dejin wuxuu inaga reebay inaynu isla xukun tagno waxaanu soo dejin ilaahay wuxuu yidhi bacda acuudu billahi min ashaytaani alrajiim inna anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allahu walaa takun lilkhaa'iniina khasiima aayaddaas waxay caddaynaysaa sababta uu qur'aanku u soo degay wuxuu qur'aanku u soo degay in aynu isku xukumo aniga xadhigayga waxaaba igaga daran yacni kitaabkan laygu xukumay waanu idinkaga darnaadaa kitaab aanu ilaahay soo dejin laysku xukumo ilaahay sidoo kale wuxuu yidhi bacda acuudu billahi min ashaytaani alrajiim afa xukma aljaahiliyati yabguuna waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuuqinuun xukunka aan ilaahay soo dejin waxa weeye waa xukum jaahiliya ayay aayaddu tilmaamaysaa marka yaa ilaahay uga xukun wanaagsan duul yaqiin la yimi yaa ilaahay inooga xukun wanaagsan yaa ilaahay inooga xeer wanaagsan yaa ilaahay inooga sharci wanaagsan walaalayaal micid baa inooga sharci wanaagsan waa maya jawaab istifhaamkaasi waa istifhaam istinkaariya sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi سورة النور إلهي وحكولي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون آيات النوح كهذا ليس حكم كتابك إلهي وحليه منافقين تيسوا كورمية وحي أرانيا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الله يا الرسول كي سوان الروميني وانا نطيعنا أمر كي سنقاضن كدبنا وابي تيسني أنا ويكهر مني ويكوب عن سيريا وكوح كم إذا مسلمين أو منافقين كوب عن سيريا مركي كدب انت هاي هذا إلهي كوا هاي عن سيريا والحولي كواسي مؤمنين ما هكوا حديدي صفاته دوامه صفاته وحوي مركا كتاب قال الله ويارو ويديدان وحولي وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون هذه الله ويارو الله الرسول كيس سوق حكمه سوق لحدود وحكمه وحوي ويديدين وكتشسرين مركا ولا الله يرضى الإسلام أيين ونهاي أنا أقول ساكا وحن سوت شيدنيا وأنا سوت شيدنيا مدحدا إيو مدح دقماتك إيو علمدا إيو شعبك جودهان أرنك أنا سوت شيدنيا عبد المالك بحبس كسب حيس كي لاوة لكن عبد المالك وحيدون كباقية ورورا اللي حرك عقابته أي مسكدين محكمتين إنك قاضي وأنو كبدلنه حرك إلهي سوت شيء وحنكسو جبينية أنا قضية ضيد وحلاقة دقيقة إنه نسهيسنو مال إسكول يسهيسنو والإسكول اسمه يسنو أشخاص قارة اسمه يسنو مركز الله محكمتين يقف كمركز محكمتين يا لقى دقيقة إنه قضية سيان أنا وحن قبا حرقة حصلك كويا وحن كهالله يحق عن شيء عد والبو حق شيكته أو تاريخ ده صومرتي أما ولا الدلاء أما ولا حراء أما ولا فوقية ولا إيريا مركا أنا وأرهن كيكو ماها أرهن أنا جاي قارة وحنا ندكو باقية إذن كدت كينن هل كنت شوقة يعد يدقي سنة يسب ولا ليا وحوي النبي صلى الله عليه وسلم وين فرعين إنه هاي منكر كسولينه يعني مد كستاب درجتي سجعنها النقطة أفها النقطة قلبها النقطة مد كستاب أنتو كران كيسة هسولي وحن مغلي إنه إسلامي أساسه دكسي بارسو هي شبكة بارسو بدهم شنو ترسان رو إسلام وركاس تشالكو يجسوا قال أركا ونسول وينية هذه ياد ما هو فرح إنه إسلامه يولك إنه لا نهي مسلمين وحوي إنه قف إسلامه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أي النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابي كم إذا صحابي إنه علي هابان ملاني marka inuu qof ilaahay ku hanuuniyo qof qura waxay kaaga wanaagsan tahay geel cascas waxay inooga wanaagsan tahay diyaaradaha adduunka ayay inooga wanaagsan tahay iyo wax kasto qaaliya marka inuu muxuu hayay sababtu ku islaam ma garanayo
arrinkiisan laga hadlayo ayuu ku islaamay yani ma si kale ku islaamay isaga inoo sheegi doona laakiin waxa weeye ninkaas uu islaamay anigu markaa waan soo dhaweynaya gudahana waa la igu sheegay xabsiga halkanna waxa weeye waxaan ka sheegay inaan soo dhaweynayo midna waxa weeye waan ku darayaa islaamnimadiisa waxa weeye islaamnimadiisu waa inay dugsigiisa waa inay ka muuqataa shabakada abaarso waa in laga arkaa maadaama qofkii muslim noqday waxii laga sheegayay waa inuu wax ka bedelaa sababtoo ah qof muslim baan noqday meeshayduna muxuu ahaayay si kale u shaqaynaysaa ee isqaban mayso marka isagana waxaan u sheegayaa waxa weeye maadaama aad islaamtay islaamnimadaada ha laga arko shabakada abaarso dugsiga abaarso ha laga arko jaamacadda barwaaqaha laga arko dugsiga kaabe ee muxuu ahaayay يعني محو هاي بربارتا هالجاركو أنت أسبوع شبكة أبارسة هالجار ولا لي الوضع مهنسنتي وحي سؤالنا فسح بوتي. ويا هي عبد الملك أنت قناة حركة واحد لشغل ويا من السياسية أنت على حبس كنت ترى واحد صباح ورش يا إما كوشين أنت أساس خلاص تأخذ اللجاء صار حبس كابوس ولا سكتي سكتي على حبس كابوس أول باقي تأخذ اللجوء أرنتها سمعتها وحويها وجهتها إن يعني محكمة العصوبة أنا جد كوجين الكفر حبسي قد حير رمضان تي وادو قيدينو يعني وحي كدعي وادو قيدين وريال halkan la joogana wax weey waa lagu xiray way noogu yimaadeen meesha marka wax weeye arrinkii ayuun baa muxuu hayay maxaaniga iyo maxaabiis kale nala ku eedeeyay maxkamad baa socotay 2 bilood iyo dheeraad u dhig wacad maxkamad baa socotay محكمتي وحويه قام بيسوسار حير لالنت كور أنا waxaan kamid ahaa dadkii ay xeer laalintu ku weyday eeda ayaan kamid ahaa oo ay galan noqotay waxa weeye waxay tiri Cabdi Maalik isaga iyo rag kale kuma jiraan bale waxaan ahaa anigu waxa weeye weeyeen madax badan baa meesha nagu soo booqatay taliyaal badan baa nagu soo booqday waxaan kamid ahaa raggii maxaabiista dejinayay xaaladda muxuu ahaa dejinayaan kamid ahaa صاحب بدنا ورياله يقولون وأوجي وركاس مركز صواب اللي يقصد ضريبة سياسي ما نفهمي لكن إلى هاي مركز دبوا نقبض باديو وحويه محكمة لو بلادي من هالشيء سعودي ولا يقصر يعني يركّ له وحليله عدينكم هاي سنة عبد الملك يركّ ركّ لنا محكمة قوام بكسو صارتي يعني هو مركز حكم بكسو صارتي وحويه ولا سيداي أنتوا دي بدنا ميدهم بانكم هاي مقناه هاي هروسي بحي أيوم بانكم هاي محكمة 3 سنة مركز تاسوي دعبي أرجع صدق ويا حلب ربنا نوتي كنت أنا ورفوح يعني ما حد الله من الدنيا ما أنت ميل كذا بسنة مثال كذا قصي واسع ما يولى الحق كذا بسنة منه ما هالشيء من حوالي هي أشخاص مقع لكن وحنا كذا بسنة إن وناقة فرنا ما نكرهنا بس لكم مقالة إن حوالي كذي يكون عفامي هذا اللي ما هو قبح حساب تسميته حق لقبح ما إلا للمسو إلهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلا أنت تتكلم يسحق إلهي عابدات إلهي إنه هو شيء يسحق وحو ليس مجران وليس مسح ودان هي حرية دي تعلي بس ودان